بسم الله. عن سلامة يا أمد الصومالي جوهان دبدي داخل بقرها وحن سلامة يا بعد الصحافة ده. في الصومالية بدولان كويسة قبل كجدو. لا صوب بالله بلي أغسطو لبكون لبيع لبعتن يحلقان أغسطو عيدن كبوليس كان لفري بيش فبراير لبكون صدح يا لبعتن من الترقي قرن كيس قرنفكها وحي قبل كوضا شميع وحي كلام لفري بيش مي لبكون صدح يا لبعتن أسلود بتبع لفري عيدن كي مركي لفرينا دادك الريقلا وحالو خصبي أحمد مدوبي ودي شعب كان حسوق يا دبعتكو هي صدن سنة نسري بقركي شن يطرن سنة كسماية اسكتشوغو إني خصب كراعان بفل الصومالي على دينيستا مركان سوب بيردعو سغالي لباتن كمية حفيز كرئيس الوزراء وحوش راي قرونة قبل كقدو كان يتوين بريك بعدنا قرون كقرباري مياه انتي كالسي وشودا لو دولو يبار ديري ويرهدين وافرني waxaa la sheegayaa berri fiqi inuu imaanayo degmada baardheer gobol ka gado waxaan cod dheer ku leenahay fiqi waxa ka soo horeeyo waa xabad weeyo mar haddii qabiil naloo beegsaday oo 12 febraayo maxkamadda ciidamada qalabka sido oo 7 nin hiraaba ay wataan dool oo ay dadka iyaga ku laayeen hadduu wasiir arrimo gudayahayna bilihii maarso iyo abriil oo fatahaad halaaga ay ka dhacday gobolka gada gaar ahaan degmada iyadoo baardheere wasiir arrimo gudo oo noo tacsiyeeyo oo dhaqaale noo keeno oo meydka naloo aasaan rabnay haddaan ka weynay cadow cunsureedu ku jirta weeyo waxaan caddaynaynaa hadduu imaado ciidda gado inuu yahay nin ka soo duulay baraxda iyo gaalkacyo duulaanna waa gada reerna waa mahadsantiin waata marka Colonel Rufle hadalkaaga carab badana ka muuqanaya maxaa kana la oran karaa arrinkaas oo idil waxaa keenay annagu jamhuuriyadda xorta aan ka midnahay nin reerkan ka dhashay Soomaalina doorataa madaxweyne noqday waa la ogyahay 2019 ilaa 2012 farmaajo soo baxayo mareexaan baa taala lahaa annaguna waxaan lahayn reer ha ka dhigina madaxweyne waa la doortaa mid kale bedelay madaxweynihii bedelay wuxuu nagu sameeyay cunsuriyad iyo ciilqab qabiil wuxuu naga raraa hubkii qaranka oo labada xuduudood oo waaweyn gobolka Kenya iyo Ethiopia oo xukunkoodu masiixi yahay labadubana dal iyo dad Soomaaliyeed haysto beebeeyadii iyo qalabkii ilaalinayay baad kireeta madaxweyne lagu raray bal ee waliba loo raray madaxweynaha haydkiisa meesha uu degan yahay gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Galguduud ciidamadii militariga iyo booliskii iyo asluubtii markii nala ka rarayna boqolaal gaadiid ah Axmed Madoobe loo geeyo waa reer u gacmo qabashadeed waa qodobka labaad 12 doorasho oo Soomaaliya laga sameeyay magacyadoodana la yiraahdo Baydhabo Baraawe Banaadir iyo Jowhar Beledweyne iyo Gaalkacyo Garowe iyo Boosaaso iyo Garbaharey iyo Kismaayo doorashadu ahayd Garbaharey nimanka ayagoo qabiilka markaan afka ku dhufto midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare xilka hayay ee doorashada loo igmaday baa naga leexiyo waxna ma aynan dooran waxna lagama dooran ayadoo ay saas ahayd halaagii dhacay iyo fatahaadii dawlad nooga tacsiyeyso nadul timaada ma arag taariikhda muddo 30 sano ah biyo fatahaada meel 30 qof ku dileen taariikhda Soomaaliya 30 sano ku dhawaad jira ka jirta baardheer bilii abriil iyo maarso man loo tacsiyeyn hadduu isteed magacii qolo sheeganaysa ahayd iyo hadday federal ahayd fiqri markaas wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya uu sheeganayay inuu maanta asagoo duulaan oo qoriyo wato oo sheegayo inuu maalinkiina yahay Sacad Madarkicis habeenkiina uu yahay Sacad Makaahilo ogaadeen Axmed Madoobe uu hilinayo inuu noo imaado waa gumeyn weeyo sida waadag waxaan idin weydiisanayaa codkaana iskale Colonel Axmed Xirsi Rufle sida waadag waxaan leenahay fiqri hadduu soo duulo adeerka ciidid baa duulaan wax kaga qaadi waayo wuxuu gado ugu imaadana waa xabad
waata marka cornele hal aan xabad ahayn ma kula macaamili kartaa marka wafdigan gada imaanayo inta xasan madaxweynaha yahay maya laakiin haddii nin Soomaali ah oo cadli ah oo ciddu doona ha ahaado alla uu ciise ahaado alla uu hawiye kala ahaado alla uu isaaqaale nin Soomaali ah oo cadli oo Soomaalinimo raboon hayb soo ahayn oo hubka xuduudda balad haawo iyo doolow Itoobiya iyo Kenya oo masiixa ka ilaalinayo jawhar iyo cadala iyo warsheekh aan geynayn ee dadka u cadli samaynayo hadduu dalka imaado waa la xaalayna laakiin xasan inta uu madaxweynaha yahay maya waata marka gobolkiisa lagama yaabo marka in dibadhac uu ku yimaado maadaama dawladda federaalka aadan la macaamilin adeer Soomaaliya dhan baa dibadhac ku dhacay xamar baana ugu daran dibadhac waka waad arkaysa bangiga qaranka waxa is eedayn iyo mushkilad ka dhacayo waad arkaysa labada shabeelle iyo galguduud waxa ka soconayo waad arkaysa xasan abtigi adeeradii abtiyaashigu kala celinayo jawhar iyo beledweynaha kala go'an oo cali jeyta waa goosta uu leeyahay mar kale waxaan leeyahay xasan inta uu madaxweynaha yahay cidii uu soo diro waa inay qoryo soo qaadato xabad nooga adkaato gada mareexaan qabsato waa baadsantiin waata marka gobolka gado in muddo oo sanado badan Jubbaland kama arimin hadda sida muuqata maamulka cusub oo soo magacaabay hadda waxay ka shaqeynayaan guud ahaan gobolka gado degmooyinkooda lagu soo dhaweynaya taasi maxaa kana la oran karaa talabadaas waxaan u malaynayaa naxali baad bowsatay gobolka gado waa 7 degmo 7 degmana muddo 4 sano ah xafiis Axmed Madoobe hoostaga kama furnayn nin al-shabaab oo inta Mandheera ka soo gudbay tuulo barwaaqo argagixisada kula soo shiray baa garbaar yimid asagana guriga uu galay oo xabsi guri ku yoo ciidamada ku hareeraysan marka qodobka waa ka saxaya Juba waa dhulka layna nooma dhisno waxaan kala hadlayaa marka waa xamar waxaan leeyahay cidii xamar gada ka soo aado xabadii ay nagu qabsan lahayd soo qaadato waata marka haddu idinku diyaarad u tiidina dagaal kaga hortagtaan mas'uuliyiintan gobolka gada imaanay saad baan ku leeyahay dawladda xasan wuxuu ka tirsan oo gada imaado hubka ay nagu qabsan lahayd oo inay soo qaadato saasan saad u leeyahay adag waliba waata marka maadaama aad arinkan ka hor dhacday sheegtan ee dagaal kaga hortagi doontaan mas'uuliyadda wixii halkaas ka dhacay soo idinka ma qaadanaysaan adeer waan ku saxayaa Febraayo 2023 shuute iyo buulle kanbay inay inta ragayagii la qarxiyay waxbaan baaraynaa ay yiraahdeen ragayagii ay marag ku baqtiyeen beebayadina ay doolow ka dhoofiyeen doolowda shisheeye Itoobiya Soomaali galbeed Itoobiya ay haysatan ay madaafiic la dhaceen miyaad moogtaa xabadu wayba dhacday meydkii dhiigii baa noo yaalo furkii iyo hubkii baa nagala tagay xabadu wayba dhacdo horay u dhacda xal kama aanan helin 5 bilood ka hor bayna dhacda marka waxaan ku leeyahay cidii maamulka Xasan Sheekh Maxamuud oo maamul beeleedka ka socoto gada soo aado hubka ay noo qabsan lahayd baan ka sugaynaa marka hadda yaa qaadaya marka mas'uuliyadda wixii halkaas dhibaato ka dhaco waxa qaadayo ninkii Soomaaliya u dhaartay oo hubkii gada uu ka raray qabiilkiisa u geystay oo la go'doomiyo dawladnimada laga go'doomiyay baa qaadayo dadku hadda beel u noqdo beel baan amreexan sida la yiraahdo gada degan cid noo dawladeyn kartana ma jirto dawladnimadu waa wax la isku darsaday marka hadaanan qaybna ka ahayn qurunkeedii dulligeedina aan baranay inaan dadka ka ceshanaa waajib nagu ah dayuusiinna anagu ay waa maasantiin wasaas way xaqiiqadu wata warkaanay baaysaa weydiisanayaa si dad bari dhiman lahaay Soomaaliyeed iyo dib dhici lahaa uu badbaado